cabdiraxmaan maxamed xuseen odaa wuxuu dhawaan kaga dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha galmudug ee 4 sano ee soo socota. waa xildhibaan baarlamaan iyo xubin ka tirsan xisbiga UPD ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa lagu yeeraa aasaasihii galmudugtii nusqaanka ahayd, laakiin isagu mid taa ka duwan ayuu isku qeexaa. Xasan Sheekh waxaan ahaa oon aniga iyo guddigii wasaaradda arrimaha gudaha ee hogaaminaysay aan lafdhabar u ahaa dhisidii dowlad goboleed mid ah ee galmudug 2015. su'aalo badan ayaa dul yaallay inuu adkaan karo iyo sida ay kooxdiisu ula falgeli karto galmudugta cusub. dood siyaasadeedka ugu weyn ee kooxdiisu waa inay cadaada qanci doonto haddii isaga la doorto, laakiin markii la weydiiyo in dhismaha galmudug mid ah ay ku xiran tahay hal magaalo oo qanacda, jawaab saxan ma hayaan saaxiibadii. 9kii bishan musharax cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa oo dhuusamareeb kula hadlaya koox dad ah oo loo diyaariyey soo dhoweyntiisa ayaa jeediyey khudbad xanaf badnayd oo hoos u dhigi karta rajo laga yaabo inay dadka qaar isaga ka qabeen. galmudug 2 sano ee lasoo dhaafo waxay ku jirtay go'doon siyaasadeed kadib markay isfahmi waayeen madaxweyne xaaf iyo hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. khudbadda musharax odawaa ee dhuusamareeb durba waxay sii iclaamisay dagaalka fila Soomaaliya iyo galmudug haddii isaga la doorto. waayahan dambe niman aan ishaynay oo hadda sirna ma baahane dawladda qoladan haysata social media wax la yiraahdo goysteen baryahanna adinka way waxa social media ka raacday kooxaha meesheedina uga sii haysana waa mas'uuliyadeedin saaran. inkastoo hal mar uu khudbadiisa ku sheegay inuu la shaqeyn doono dawladda dhexe loona fasiran karo boor isku qarin siyaasadeed, haddana wuxuu 2 ilaa 3 jeer khudbadiisa ku weeraray dawladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan maanta ka xumaaday anigoon aad ugu fogaanaynin ciidamada ajnabiga oo airportka jooga. waxaan ugu xumaaday soo daraad ma ahayn magaalada Gurceel ninka qarax isku dayay wiilashii saas garbaduulka u qabtay soo meeshan ma joogaan. ogaada anu kuwaasan shaqo u dirsan doonaa kuwa kale ma keenayeen. alaalay inta ay run noo sheegayaan na waa la shaqeyn doonaa haddii la yiraahdo. hadday wax qaar igu masawir noqdaan oo iska diidanahay la yaabinina mararka qaar nin ana falo wax iska diidanahay dawladda federaalka markay qalbi dhagax diiday waa iska diiday, markay cabdiraxmaan cabshakuur weerartana waa iska diiday, haddii wax qaldan ay la shirtibaadana waa iska diidi doonaa. wasiirkii hore arrimaha guduhu wuxuu aad ugu dheeraaday inuu naftiisa ammaano meeshii laga sugayay inuu wax badan ka sheego baahiyaha deegaanada galmudug iyo sida ugu fudud ee uu ku xallin doono haddii la doorto. nin xusuustiisu iska yara fiican tahay aan ahay maalin dhaxdaas anigu waxaa laygu tilmaamaa inaan ahay nin mabda'iisa ku adag. marka haddii aad siiyay madaxweyne maray dhaha ma arrinkaygu waxaan rabaa inaan idiin sheego haddii ilaahay yiraahdo waa idiin imaan doonaan kuwaas waa soo daba socdaan anaa hadda u horeeyay. ma ihi dadka oo waqtiga balwada leh oo waqtiga balwada uu ka qaadayo kalayo waxaan ka shaqeeyaa arrimaha biyaha iyo ceelasha. haddii galmudug aan madaxweyne ka noqdo. khudbadda musharax odawaa oo u muuqatay mid aan sahankeedu saxnayn ayaa sii maratay madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. laakiin gardarro annaga naga timaado xaggeena inta ka timaado la yiraahdo dawladdii waa la qaraab tegay ma imaan doonta haddii la yiraahdo. xildhibaan odawaa wuu hanjabay, wuxuu ku goodiyey inaan waxba looga qaadi karin deegaanka doorashada oo ah dhuusamareeb. wuxuu u muuqday siyaasi caadifad hadlaya, taas oo su'aal gelinaysa inuu isku wadi karo 11 beelood ee wada degan galmudug. waa iska garan kartaa nimankan wax la leenahay anu horta la rabaa inaan idin sheego wax cabsi oo ka qabo ma leh in meeshan galmudug la yiraahdo wax dardara laga samayn karo. meeshaan meel maaha odaba la yiri waxa aad noo sheegay taariikh buugiyo la mid joojin kare waxaan usoo waxaan waa in xaniin laga saaro warweyn mudug baan ka iibado 2 xaniin aan ku jooglahay hal wallahi inaan ku aadi halkan marka anaguna bariyo kuma joog waxaan rabnaa processka waa inuu noqdaa process fair oo cadaalad. wax walba cadaalada waa aqbalayna waan ogolnay, wax walba cadaalada ka baxsan aqbali mayno nalamana marsiin karo ilaa meeshaan meelna lagu bootay maahan. sidii ay dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh u maareysay arrinta galmudug 2015 waa taariikh madow oo diiwaan leh. waxaa jiray muranno badan, cabashooyin beeleed, sad bursi, awood sheegasho iyo eedan la xiriiray in doorashada loo isticmaalay hantidii ummadda.
laakiin xildhibaan Odowaa oo markaas ahaa wasiirka arrimaha gudaha wuxuu 9kii bishan dhuusamareeb ka sheegtay wax intaa ka duwan. halkan waxaa jooga saaxiibkay Axmed Macalin Fiqi oo ahaa musharaxii madaxweynaha Galmudug 2015 oo la tartamay dowladda federaalka markaas anigu aan wasiirka arrimaha gudaha ka ah marqaati weeye waxaa la yidhi nin deelow nin dhintay nin dheer marqaati u qabsadaa waa kan gadaasheeda fadhiye habeen usbuucii 3 mar aan shiri jirnay si processka uu ogaado ugana warhay wasiirka arrimaha gudaha injineer Sabriye ilaa hadda qadarin weyn baan u hayaa laakiin ilaa heerkaas uu gaarsiiyo waxa aan la socdo wixii oon ma nin hadda deedeeyo ku haraa ma yaha ogaado. Odowaa wuxuu marqaati u qabsaday xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo markaas ahaa musharax bal aan eegno inuu Fiqi qanacsanaa xilligaas waa kan isagoo ka qayb galaya dood loo qabtay musharaxiintii xilka madaxtinimada ee Galmudug ee 2015 processkeedu hadduu sax noqdo si fair iyo free election ay noqdo doorasho loo siman yahay oo si fair u dhacdo xaqa iyadoo dhaliilo badan hadda la filayo la soo maray maalmihii la soo dhaafay oo dhan gaar ahaan xareyntii xubnaha baarlamaanka waan ognahay dad badan oo maaragtay mudnaa in si noocun ma yani laga tuuray mooshii dacwooyinkaasna ay socdaan haddii arrintaas iyo arrimaha kale ay saxmaan free aana gaaro maalinka u dambaysa inaan doorashadaas u tartamo wixii ka soo baxa waa aqbalaya waxaa intaas iiga horeysa anagu waqtiga ka faa'iidaysanaya saaxiibkay wuxuu yidhi anagu waa joognaayoo maalmahan oo dhan indhahan ku haynay waxa ka dhacaya Soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe dhulkii usluubta sida loo adeegsanayo yani musuqmaasuqa gaar ahaan dawladda iyadoo dawladda la marayo dhulalkii iyo hantidii iyo mushaaraadkii shaqaalaha iyo kulli waa la laayahay dhulkii 21 October gadaasheeda ku yaalay waa la gogoostay ganacsataana laga gadayaa waxaana la aaminsan yahay dadku ay aaminsan yihiin dawladda laga rabaa inay taas cadeyso iyo hanti dhowrka guud in marka raalli ahaada inay cadeeyaan laakiin dhulka usluubta waxaan ognahay in dhulka usluubta loo adeegsaday arrimahan gobolada dhexe ka socda waa wax cadeymo loo hayo waa wax dadkii la siiyey intooda badan qaarkood halkan ay joogaan oo boosaska loo kala jarjaray iyadoo doorashadan awgeed loo adeegsanayo marka waxaan kaloo daraad miyay ahayd VOA-da laga sii daayey in lacag 30 milyan oo bangiga Soomaaliya ku soo dhacday oo nin dhan oo special envoy-ga dhan oo Mareykanka uu yiri 30 milyan ayaa ku soo dhacday bangiga dhexe waana la waayay muddadii 6 bilood oo la soo dhaafay waxaan la aaminsan yahay inay gobolada dhexe aaday. kooxdiisa ololuhu waxay sheegaan inuu Odowaa yahay hogaamiye digital ah laakiin hadalkan iyo sheegashadaas waa kuwa isdiidaya. أنا أقول سايس بقصنا مرة وأنا قاعد أتصل يا أبني بس قاين أنا أقول سايس بقصنا أنا أبني ما أشوفه. dad badan oo daawaday khudbadan waxay ku tilmaameen hadal daqarro badan leh oo dhaawacay musharaxa. Galmudug ayaa dhawaan aadi doonta doorasho madaxweyne 2 sano ee la soo dhaafay maamulku wuxuu go'doon ku ahaa dhuusamareeb kadib markay isfahmi waayeen madaxweyne Xaaf iyo hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. 4 sano oo isqabqabsi iyo dib u dhac kadib inta badan dadka reer Galmudug waxay u muuqdaan kuwa raadinaya hogaamiye xallin kara tabashada beelaha fahamsan ahmiyadda deegaanka wada shaqayn wanaagsan la yeelan kara dowladda federaalka aan caadifi ahayn nabadoon ah oo wata qorshe aan mar kale maamulku go'doon ku noqon karin.